أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال صحابي أبي أمامة يالقورنا قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم وحودهي عليكم وردائمة أو لازمة بقيام الليل صلاة قيام الليل كدائمة فإنه محايل قيام الليل دأب الصالحين كويون وناكسنا رقم كوذوي وقبلكم إذن كهري وقربة يودواشوي إلى الله تعالى الله سبحانه وتعالى أكتسو لو دواضو ومنهات ريبدوي عن الإثم دنبغ حقيس الإسكريبو قفك مركو صلاة الليل أوتكذو دنبغ نوكريبا والتكفير يضافدوي للسيئات وحمانة الإسكرافو مركا النبي عليه الصلاة والسلام وحونو دردار مايا صلاة الليل كنا كود دالنو قفك مسلم كأه حبا يراتي لبركا إنو تكذو يعني صلاة habeenkii inuu soo kaco wax uu tukado nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxaad daa'imtaan oo aad laazimtaan oo aad ka warqabtaan war salaada habeenkii tukado oo ka warqabo wuxuu yiri fa innahu da'bu saalihiina qablakum salaada habeenkaas la tukado salaada habeenkii la tukado dadka wan wanaagsanaa dhaqankoodu way dadka idin ka horeeyay oo wan wanaagsanaa dhaqankoodu way habeenkii ay tukun jireen sidoo kale waa qurbatun ila Allah way Allah subhanahu wa ta'ala ay ku dhaweysaa sidoo kalena dembiga iyo xumaanta inaad samaysid ayay kaa reebta ayay kaa ilaalisaa wa takfiiru lisayi'aat sidoo kalena waa dhaafid la isku dhaafayo xumaanta kaa dhacday dembiga iyo macaasida aad samaysayna waa lagaa dhaafay salaatu leelka haddaad daa'intid marka fadli aad u qiimo badan ayaa ku jiro oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu noo tilmaamayaa marka qofka muslimka waxaa la doonayaa habeenkii wax yar Allah ka dhigo inuu tukado oo soo kaco rabbi subxaanahu wa tacaala uu xasuusto fadligaas aad u qiimaha badan ayuu helayaa